taariikhdu dadkay bartaan dunida taariikhdu dadkay bartaan waxay dunaad taariikhdu dadkay bartaan inay dantood gartaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين وناسان ميلو بأدونة كجوكتان وبرنامج كني على الكهال جري أرماها فلقينت أرماها سياسة أما فلقينت أرماها بشدة عاو برنامج كنو وحينو ديرتك صارينا برنامج آديات حساس ونسلايها بشدة الصوماليات وواحد مهمة ورن أنتي لقرب إن لقهالضو موضوعنا موضوع حساسي وحنا تاك وكلفتي إن أنا صوت دورنا waxa kale waxay tahay maadaama ay tahay wax bulshada xanuun keeda soo taray am wax badan oo tuuma ah ay soo baxayaan waxa loo baahan inay runtii farta lagu feeqo wax kasto bulshada wax taraya iyo wax kasto dhibaato wax taraya wixii dhibaato keenay labadaba in farta lagu feeqo waxaan ogsoonahay caawa barnaamijkeenu saan hore in kaaga balan qaaday in kugu soo gudbinaa waxa caawa falanqeynteen oo tahay aan dir saarin waxay tahay hagardaamada shirkadda Hormuud waxaa laga yaabaa inaad markaad maqasho caawa Hormuud aad kugu soo dhacdo shirkaddii Hormuud ay kugu soo dhacdo waxyaabo badan oo positive oo ay qabatay inay tahay isgaarsiintii ugu horreysay ee dalka laga hirgeliyay inay tahay isgaarsiin dad Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo nuucyo kala duwan runtii maaragtay wax u qabatay waxyaabahaas oo dhan way kugu soo dhacayaan waxaa kugu soo dhacaysa in adeeg hufan ay shacabka Soomaaliyeed hayso waxaa kugu soo dhacaysa inay adeegi lacagihii dalka dhaqaalihii dalka ay gacanta ku hayso waxa kugu soo dhacaysa inay tahay shirkadda aad iyo aad loogu kalsoon yahay waxa kugu soo dhacaysa inay tahay shirkad dadka Soomaaliyeed hantida ugu badan ee Soomaaliya leedahay halka ay taal waxa kugu soo dhacaysa inay tahay shirkad aamina waxa kugu soo dhacaysa sawirro badan oo qurux badan ayaa hortaada imaanaya waa run intaas oo dhan aan ka sheegayno wax jira waxa qof tara bini'aadamka sidiisa waxa wax lagu sheegi karaa waxa uu yahay amaan dhinaca kulliyan waa laga sheegaa dhinaca uu xumaha kulliyan waa laga sheegaa waxa jira ilaahba hoos og laakiin waxaan soo qaadanaynaa sawirro ama aan leenahay muuqaallo waxaan soo qaadanaynaa adiguna aan falaqaynta aan ku wada qaadan doono oo runtii la rabo su'aalo u baahan in la dhaxlo dhagaara markaan ku leeyahay dhagartan waa lagu soo eedayn karaa waa rumoobi kartaa ama waa beenoobi kartaa waa rumoobi kartaa waana beenoobi kartaa laakiin marka horeysa waxaan raadinaynaa marqaati ka raadinaynaa dadka dhexdooda bulshada dhexdeeda ayaan marag iyo marqaati ugu raadinayna dhagartaas waxaan soo qaadanay dhowr qodob dhagaraha dhowrka qodob aan soo qaadanay waxaa kamid ah Hormuud waxaan ku sheegnay inay tahay halka maaragtay ama waxay tahay maskaxdii shabaab ayaan dhihi karnaa mar saasaan qodobka soo qaaday balse ay ku noqotay su'aashaas waan kaga soo jawaabi doonaa mar waxaan ku niri waa maskaxdii shabaab oo haddii aan ku yiraahdo waa maskaxdii shabaab sidee ku noqotay iyo Hormuud iyo shabaab maxaa soo keenay su'aal baa meeshaas ka taagan labo waxa ku soo qaadanay inay tahay logisticada ama halka wax loo soo mariyo ama agabka ay ayadu shabaabku halka ay soo marsaan inay tahay Hormuud iyana eedeyntaas ayaan soo duldhignay eedeyn saddexaad waxaanu waa kaydka dhaqaalaha shabaab halka dhaqaaluhu shabaab uu ku shubto ama uu dhaqaalaha halka dhaqaalaha waxaan leenahay halka dhaqaalaha uu shabaab ku shubto waa Hormuud ayaan hadana soo qaadan waa qodobka saddexaad waxaan hadana halka ku soo qaadanin qodobka afraad hagardaamada ciidamada waa Hormuud waxay hagardaamo ku tahay ama ay hagardaamiso lugoysaan ku leenahay eedeyntaasuna waa duldhigno waxaan niri hagardaamada ciidamada qalabka sida dawladda hagardaamo ay ku tahay bal sidee ay ku tahay su'aalahaas oo dhan anaan kaga jawaabi doona sida eedaha aan eedi doono kulay tab eedeyntaas Hormuud ayaduna waa ka jawaabi doonta haddii ay kulay tab isdifaaci doonto qodobka shanaad wuxuu yahay sirta shacabka cidda bixisa waa Hormuud haddaba
shantaas qodob waa laga yaabaa in eedayn ka badan dadka soomaaliyed u haystaan laakiin shantaas ayaan caawa soo qaadana maadaama aan nahay anaga warbaahinta keliya ee arrimaha baaritaanka investigationka runtii ku faro dhowdhowan laakiin baaritaankeenu anagu ma aha mid journal ayaan u baarnaa laakiin independent mid oo maaragtay dhiil gudaha unsii galna ma aha fursaddaasuna awooddaasna ma aan lima leeyin oo been kuma sheegi kareen balse waxaan soo qaadanayna sawir muuqda waxyaaba badan oo aan baaritaan u baahnayn oo iska cad ayaa jira marka sawirka muuqda ee dusha saaran oo adigana igaga markhaati kacayso cid walbana ay igu markhaati kacayso waa fahmi kartaa haddii aan ku iraahdo hebel tusaale ahaan haddii aan ku sheego hebel waxa uu waa nin noocaasa oo aan tilmaamihiisina aad aragto tusaale ahaan haddii aan ku iraahdo hebel waxa uu ku sifoobay nin balood leh haddii aan formalkiisa aad fiiriso balooddii aan ka sheegay nin baloodu dilootay haddii aan ku iraahdo balood dilaashadu waxa uu imaanaa qofsi jirkiisa iyo korkiisa iyo dhaqankiisa laga dareemaya soo ma marka tilmaantu waxay tilmaantaa eedayntu ama wax lagugu sheegaay waxay noqon kartaa mararka qaarkood wax aad u ekaan karto laakiin aadan noqon karna waa iska jirtaa laakiin anigu waxaan soo qaadanaa maadaama aan sarkaal ciidamada booliiska soomaaliyeed xaqiiqda aniga ma rabo inaan shirkada aan intaas ammaana u soo jeedinayn oo waxaasoo dhan qabatay soomaaliya meel wanaagsan ka soo qabatay howlo badan soomaaliya usoo qabatay abaaraha ka qayb qaadataa dad badan oo dhibaataysan waxbarashada qayb ka noqotay wax badan oo positiifa qabatay laakiin haddana dhinaca wanaagsan sawirka dhinaca wanaagsan waa ka naqaana oo hormud dhanka wanaagsan sawirka qurux badan oo wanaagsan waa haysaa laakiin dhanka qurunka oo dhibaatada ku jirtaay ayaan caawa idin soo barin doonaa bal marka u horeysa caawa eedda koowaad aan kusoo eedeynay hormuud maxay tahay caawa eeddan waa ka weynaan kartaa eeduhu laakiin runtii waxaan soo qaaday kuwa qaf oo dhihi karo waa kuwa dhowa oo halka dhow yaalla eedda u horeysa maxaan ku waa maskaxda waa hormuud maskaxda shabaab inay hormuud tahay waxaan kuu caddeynaya 3 sababoodan kuu sheega marka horeysa horta haddii aad aragto dhaqaalaha ugu badan ee dhulka shabaabka oo haysto waxa ka hela ama gacanta ku haya waxay tahay ama isgaarsiinta ka shaqaysaa waa hormuud taas marka waxay keentay in ay hormuud ayaa horta halkaas waa gacan saarka ugu weyna ay la leedahay tusaalaan kuu sheega ma waxaan caawa iga dhaadhacsan ama aan kaa yeeli karaa ama hormuud aan ka yeelaa dhulka shabaab ka taliyo hormuud awood kuma leh oo macnaha shabaab awood kuma leh oo wuxuu doona kama sameeyo miyuuna shirkadda wuxuu doona ka qaadan dhaqaaluhu doona miyuu ka qaadi karin dhaqaalaha uu rabo shabaab ma ka qaataa maadaama ay ka howlgasho ayadoo ma ka howlgelin baaba dadka laga qaadaa laakiin waxaan ku isweydiinta waxay tahay ma ka howlgasha mas kama howlgasho waa midda koowaad midda waxay tahay qaraxyada halka loo mariyo ama taleefanada lagu adeegsado ama isgaarsiinta loo adeegsado yaa bixiya waxaa bixiya hormuud xaqiiq waa caawa qarax kastoo dhaca qaraxyada inta badan waxa lagu hagaa waa taleefon waxa loo adeegsana waa taleefon yaa bixiya simkaarkaas bilaa registrationka oo cidda le aan la aqoon haddii aad weydiiso yaa ganacsatada la waca taleefanada laga wacaahay yaa iskale hormuuda iskale markii aad weydiisan waxay ku leedahay hormuud waa shabaab wayaa soo wacay lambarkaas ay soo wacay niman bay soo waa shabaab la xiriir dad badan oo caawa dhegeystayaasha barnaamij ku jira insha allah markaati furi doono waxaan rajeynaa dadkaas badan oo runtii ayaga ka markaati furi doono dhihi doono waa hormuud dhihi doona ayaa jira oo aan arki doono inay runtii ay yihiin dad og inay runtii ay barnaamijka hore loo soo wacay oo la yiri oo taleefankan aniga la soo wacay yaa waay ma aqaan lambaran aqaan maaha sorry waa ma aqaan lambarkan ma taqaanin yaha lambarkan waa shabaab marka halkaas waxaad ka fahmaysaa wada shaqayn ee maskaxdii ka dambeysa in magaaladan iyo wax kastoo howla oo socdo shabaab inay ayagu yihiin halkan loo soo dhex maro ama maskaxdii ay halkii ka adeegaan taasna waxaan dhihi karnaa waa maskaxdii koowaad oo shabaab maskaxdii ay u soo marayeen dadka in lagu dhibaateeyo sababtoo ah haddii gurigaada loo soo dhex maro reerka deriskaada ah adiguna qayb baad ka tahay ama waxaa la dhihi karaa waaba halkii ay dhibaatadu ay ka timid qodobka labaad waxaan eegaynaa bal logistikada maxay tahay ma waxaan caawa waxaa jirta in shirkadda hormuud ay keensto agab badan oy dibadaha ka soo dhoofsato agabkaas badan oy dibadaha ka soo dhoofsato inta badan hormuuda loo yaqaana waxaan ognahay kasamka aniga lafteena ka shaqeeyaan dekada magaalada muqdisho ka shaqi jiraan agabka awood inta badan lama baaro hormuuda wata waa la sii deynaa agabkaas sow lagama yaabo marka wax walba oo TNT-dan qaraxyada fulis in lagu soo qaado sababtoo waxaa qasaba in shabaab xataa awood xataa ku haysto oo laga yaabo inay yidhaahdaan haddii aadan intaas noo keenina
alaabtaas aada noo keenin ama noo soo qaad meesha ilaa waxa kan TNT da bixiyo dowlado waa wadamada carabtan laga soo qaada inta badan oo qarxiyada dadka Soomaaliyeed in la qarxiyo loogu talagalay ayada lafteeda ayaa la soo mari karaa ama waa dhacdaba waxaa la xaqiijiyay in agabka ay leedahay shirkadda aan marnaba la baarin agabkana meelo badan ay ka soo dejisaa taasna kaas ugu tag waxaa qodobkan kale oo saddexaad waxaan fiirinaynaa kaydka dhaqaalaha waa xaqiiq waay waxaan tegaynaa daarusalaam yaa degan kulli shabaabaa degan boqolkii konton waa shabaab boqolkii konton kalena waxaa iskale dadka qurbo joogta iskale daarusalaam ka fiiri meelo kale agaarkas daaraha dhaadheer magaalada muqdisho oo dadka alle aan la aqoon shirkadda hormuud ah lagu leeyahay intaasu dabaq ay dhula ay gedaysaa yaa iska dhaqaalahaas waa dhaqaalihii shabaab waa halka dhaqaalaha shabaab uu ku xaroodo oo u ah kaydka waa shirkadda hormuud xaqiiq waa shak kama taagna cid walba oo soomaalina way ogsoon tahay in shirkadda in ay hormuud laga leeyahay dhaqaalaha soomaaliya halka uu yaallo oo shabaab u dhigto ay tahay shirkadda hormuud xaqiiq waa ama shirkadda shir kula ahaadaan ama iyaga kula ahaan hormuudna waxay eegaysaa dhaqaalaha ay gacanta ku haysaa ninka dhaqaalihiis inaad haysaa ay waa ku shaqaystaa marka hormuud waa halka ay maarata dhaqaalaha shabaab uu kaydka u ah xaqiiq waa shak kama taagan taasna waxaad garan kartaa in halka keliya lagu aruuriyo dhaqaalaha ay tahay hormuud ka soo tag qodobka afaraad ood arkayso hagardaamada ciidamada qalabkiisa caawa markay doonayaan in howlgal ay sameeyaan tusaale ahaan hadda dib u xoreynta dhulka dib u xoreynta la xoreynayo waxaad arkaysaa in caawa markii ciidanku inuu dhaqaaqa la rabo isgaarsiinta ay dimiyaan waxay dimiyaan branjigaas ama laantaas ama xarunta ay leeyihiin aagaas tusaale ahaan dhuusmareeb ay caawa weerar qaadayso waxaa la ogyahay in beesha Saleymaan weerar qaadayso ama ay weerar qaadayso ama ay qaadayaan beelaha ama ciidamada qalabka sida ee ka howlgalaya Hirshabeelle isgaarsiinta goys bal waxa weydiisaa hadda Hirshabeelle inta mar ay qaadeen weerarada lagu qaadayay meeshii la lahaa maarta masaajid al-guduud weerarada imisa mar ay anteenadu ka tagtay howlgalka ciidanka markii la maqdo anteenada ay hawada ka saaraan ayagoo qaata amaawirta shabaab ilaan shabaab waxay soo helaan xogta in ciidan waxaa la shaqeeya hormuud baa la shaqeysa isla markii hawada laga saaraa isgaarsiinta hawada laga saaraa taas marka waxay keentay caqabad in ciidankii uu wax qaban waayo howlgal kastoo ciidanku qabanaya haddii hormuud ay dhabarjab ku noqoto waa mushkilo kale hadda waxaan arkeen in lafteedu ay ka guurayso oo ciidamada lafteedu ay ka guureen ay u wareegeen maarata shirkaddan la yidhaahdo somtel marka taa maxaa waxay tahay in hormuud ay gacan saar la leedahay ka soo tag qodobka ugu dambeeya oo falanqaynta aan insha allah aan eegay wuxuu yahay sirta shacabka ayaan rabaa inaan idin barigo sirta shacabka sidee u bixisaa aniga hadda dukaana waxaan ku leeyahay nin aan saaxiibo aan nahaya wuxuu dukaan ka furtay barowax dukaanka wuxuu ahaa dukaan shabshaba carwo isku dhacayso ahaa dhaqaalihi maarata efi balaska ee lacagta usoo dhacdaa isla markiiba dukaan agtiisa laga furay isla nuuciisa kuma aysan sinaanin waxaa jirta in markii dhaqdhaqaaqaada xisaabaadkaada la ogaado waxaad ka ganacsataa dib loo baara oo waxaa la ogaana waxaad ka ganacsato agabka aad ka ganacsataa isla markii la keena waxaa kaloo ka siiyaa badan haddii aad shirkad aad tahay hadda waxaan ogeyn shirkad nin kaloo aan qaraaba aan naha u lahaa hadda ka hor oo shirkadaha qasab aan kuula shirkown haddii aad shirkadda diiddo hawada laga saara dad badan oo ganacsataa oo la dilay oo shirkadahooda aan kula shirkooba loo dilay dartood waa badan yihiin hormuud waa dadka adeegsado waa waxaa kaloo kaaga siyaa badan haddii aad caawa aad keensato suuqa aad keensato tusaalaan sibir aad keensato sibirkuna uu suuqa ku yaryahay isla markiiba hantida shacabka Soomaaliya ayay ilaan hormuud haysaa markiiba isla sibira lagu dul keena oo qiimo jaban si suuqa lagaga saaro marka sirtii shacabka waxaan halkaasi laga raaca waxay tahay dhaqaalaha ku soo dhac EV Pluskaada ku soo dhac marba waxaa lagala soconaa waxaad ka ganacsato iyo waxa aad u keento isla markii baaritaan lagu dhaqaana marka waxay noqonaysaa in sirtii aan sir xafidan aysan intaasoo hagardaamo kaloo wax qarsan intaas waa inta la yaqaan iyo wax kaloo qarsan laakiin annagu kuma diideyno mana beenaynayno inay shirkaddan qayb weyn oo horumarka dhinaca horumarka ka soo qayb qaadato waxaa jira wax badan eedeyn kale oo laga yaabo eedeyntan ama falal ka badan in shacabka Soomaaliya ogyihiin laakiin hadda ayagaan u daynaynaa dhankiina falaqaynta waa dhankiina laakiin xaqiiqda waxaa inaan shantaas aan caawa ka sheegayno oo ay u horeyso in shabaab ay tahay maskaxdii ka dambeysay oo ama halka loo soo maraba aan dhihi karaa ama halka loo soo maro ama maskaxda lafteeda shabaab ay ku shaqaystaan halka ay ka howlgalaan
labo logisticada inay qayb ka taqaato oo waxaa tuumo weyn ku jirtaa in logisticada qalabka hormuud u yimaado oo qayb maarata qaybaha shabaabku ku adeegta ay ka mid tahay kaydka dhaqaalaha waa lambarka saddexaad kaydka dhaqaalaha shabaab waa run in kaydka dhaqaalaha shabaab uu halka ku kasyahay uu yahay halkaas lambar afar waxaa waa hagardaamooyinka ciidamada qalabka sida ee hadda howlgallada ka sameeyaan waxay tahay kuwa hagardaamada ku ah ugu dambeyn waxay tahay sirta shacabka ayarsa shantaas qodob waxaan leenahay eedan ku dul hogaanaysa run ahaantii anigu kuma murmeyno mana diidano inay dadka soomaaliya caawiso ma ku diidani inay agoonta kaalmayso inay jaamacadaha waxbarashada qayb ka noqoto inay horumarka bulshada hadda u dambeysay 200 kun ayay qaraxii ku dhiibtay waxa been lagama sheego horumarka isgaarsiinta qaabka ay u shaqayso waa qaab aad u wanaagsan walow duldulaalo uu leeyahay laga yaab laakiin xaqiiqda waxaan dhihi karnaa in shaqadeedu ay tahay shaqo wacan adeeg fiican oo hufan ay hayso ha yeeshee waxa meesha ku jirta waxay tahay dhaqaalihii dadka soomaaliyeed oo ay gacanta ku hayso oo aan nidaamka sharciga waafaqsanayn oo la rabay nidaamka bangiga dowladda inuu ku wareego ayaa u sahashay inay ku hantidii shacabka soomaaliyeed ay ku shaqaysato xaqna uma laha inay xukuumadda dowladda gacanteeda u gashay ayay ahayd lambarka ay ku shaqaysanayso waxaa iska leh xukuumadda waxaa la rabaa marka xaqiiqa la eego canshuurta laga qaada waxay ahayd 50% boqolkii 50 in laga qaado canshuurta dhaqaalaha usoo xarooda boqolkii 50 in dowladda ka qaado maadaama ayba xaq uba lahaynba inay hantidaas iyadu ay ku tagrafasho bala falanqaynteeni halkaas aan u gudbayna bal waxaan rabnaa inaan alaaba haddii aan SWTV waa warbaahinta keliya ee si toosa bulshada Soomaaliya ula qaybsto wararka barnaamijyada falanqaynta oo arrimaha bulshada iyo arrimaha siyaasadda haddaba aragtideena iyo fikirka shacabka Soomaaliyeed ay ka qaartay ka qabaan fikirka ay ka qabaan bandhankiina aan sii doona anagoo furina dan farsamayaqaanku idin furi doono qadka taleefanka oo markaan insha Allah barnaamijkeena uu qayb ka noqon doonto aad ka noqon doontaan bal waxaan jecelnahay haddii alla raali ka dhigo commentigiina waan aragnaa qaybta streamka aad naga daawanaysaan iyo qaybta YouTube-ka iyo Facebook-ka labadaba waan soo dhaweynaynaa habeen wanaagsan ru'aantii annagu cid aan duulaan ku ma jirto ru'aantii wax walba waxa wanaagsan markii laga hadlayo in xaqiiqda jirta ee dhabta ah oo waxa dhabta ah laga sheego oo aanan laga sheego sababta waxay dan u tahay dadka Soomaaliyeed balka qaybgalaha u horeeya barnaamijka ayaa waxaan jecelahay bal marka hore halo magacaada halka joogto halo waa ka xumahay kasmaqli weyne halo salaamu calaykum السلام عليكم. عليكم السلام magacaadi walaal halka joogto adigoo maasan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. saaxiib magacaadi halka joogto adigoo maasan gobolka City. waxaan joogaa gobolka City. gobolka City aad joogtaa deegaanka Soomaalida. deegaanka Soomaalida. barnaamijka aan ka hadlayna ma la socotaa walaal waan ka hadlaynaa barnaamijka ma fahamsantahay aad baan u fahamsanayaa hay shirkadda hormuud warbixin ma ka haystaa shirkadda hormuud si fiican baan ogaynaa wax warbixinteedu aad baan uga haynaa waan ka dheregsanaa maadaama xilli kasti aan Soomaaliya joogno wadamada gaarka aan garab joogno dhibaatada weyn ee xilli kasta shacabka Soomaaliyeed soo wajahayso shirkadda hormuud iyo shirkado badan baa ka agowday waa gartay maxaad ka war haysaa oo ogtahay noo sheegi kartaa nala qaybsan kartaa shirkadda waad ku taqaan marka hore la yaabanaa waxaan degay kilka shanaan joogaa hormuudan aqaan oo xogaa waxa way shakiya galaba dadka Soomaaliyeed dad gudaha jooga ayaa waxaasoo kale la weydiin kara oo xogowaal waa laakiin umaleyn maayo nin dibadda jooga inta badan dadka joogaa kilka shanaad ama kilka maartay Soomaali galbeed dhulkaas deegaankaas inuu yahay deegaan runtii aan runta marka aan dib ugu noqono shirkaddu hadda way labaatan jirsatay abaal weyn baa looga hayaa adeeg hufan oo dadka Soomaaliyeed runtii qabtiray dhanka internet xawaaro wanaagsan leh taleefon maartay aad maartay adeegyo quman oo qurux badan leh runtii waxyaabo badan adeeg aad lagu amaanay ay leedahay laakiin su'aalahan dhan waa su'aalo ku xeeran shirkadda xagga adeega waxaan dhihi karaa shirkadaha Afrika ugu wanaagsan ee la dhihi karaa shirkadaha Afrika ugu wanaagsan ru'aantii adeega ay hayso iyo sida uu shaqayso bulshada ugu shaqayso waa wax al amaano oo been ma sheegtaa laakiin tuhmadani oo badan waa wax jira waxaan shaki aan lahayn oo aan been aan ku dambaabaynin in waxa dadka Soomaaliyeed lagu qarxiyo ama dhibaatada lagu qarxiyo ay tahay dhaqaalaha iyada lagu qarxiyo ay tahay mid koowaad dhaqaale ay bixiso dadka maanta dhimanaya dadka ganacsatada ama lama dhigi karo dadka ganacsatada ama shirkaduhu waa qaybta lixaad ay ka qaataan
qaybta ugu badan ay ka qaataan bixinta dhaqaale ay siiyaan shabaab dhaqaalahaas xageeba kusoo noqda bulshada lagu baabi'iyaa marka bulshadii ayaa lagu dilaa lagu baabi'iyaa ma waxaan leeyahay hormuud dhaqaala ma siiso shabaab ma siiso miyaan leeyahay xataa haddaysan siin ka soqo caawa hormuud haddaysan wax dhaqaalaaba siin xataa caawa waxaan dhihi karaa in ay halow salaamu calaykum waxaan dhihi karaa waxaa lagu dilaa sim kaarka dadka ay iyaga siiso halow salaamu calaykum saaxib وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. saaxib barnaamijka ma la socotaa magacaadi halkaad ka joogto علي جان. jaamac xaggaa joogtaa علي جان والله علي جان والله. cali jaamac oo jooga مقدشو. cali jaamac hay barnaamijka caawa ma la socotaa hormuudaan dusha ka saarana caawa hormuudaan jirjilaynaa shirkadiina سوى والله. hay وحقيقة برنامج كاس برنامج جلوي محتوى كذا حتى مثلا عندما وحراتانين دولة فدركة مسابقة مشاركة قاتانين وحلوش لازم كذا ورمد waa gartay وأقوم dhaqdhaqaaqa waa la socdaan xogtii ku bixinayaan qaabka waxay kale oo sameynayaan lacagaha ku hadalka ama ku shubatid ama daatooyinka internetka ku isticmaashid xawaari gelinayaan oo aan qofka mushaarka u sameeyo qofka kale isku mid maaha waa gartay macnaha adeega wax ka qadiin ma leedahay adeega xaggiisa ka hadlaysaa laakiin caawana adeegeeda kama hadleyno waxaan ka hadlaynaa tuhumada amniga iyo hanaanka maarata tuhumada ku farta ku godan ee xagga amnigaan ka hadlaynaa dhibaatada ay ku tahay iikaadi waa fahansanay waa ujeedkayga faham lacagaha qofka simkaarka qaata lacaga degdeg bay gelinayaan matalan simkaarka lacagta ay kusoo dhacday simkaarka kaleeto isku waqtiga hadlimaysa lacagaha dhan waxaan fahansanahay aan dareemayaa waa lacagaha ay u isticmaalaan inay ku burburiyaan waddanka waa waxyaabaha ay ka dhaqaaq leedahay hadda dowladdu awoodda koowaad ee xoogga leh hortaagan in hadda ay howlgalka dowladda ku guulaysato koowi ka tahay inahaasaan kusoo gaabinaya laakiin hadda adiga wax toosanoo hadda eed aad u hayso lacagtaas aad sheegaysa mooyaan wax kaloo eeda ood u haysa eedahan waxaad ku rumay kartaa ma jiraan oo aad aniga intaad ugu raacinba waxaad adiga as leedahay waxbaa ka jira ilaan qofta baniaadamka waxbay rumaysan kartaa isku ra'yi inaan noqono qasab ma aha laakiin see u arki kartaa eedahan wax jiri karo suuragala ma tahay waa ka xumahay waa ka goy halo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلامتين أدي دتك ماشي كجرو ay saaro malena هولون ha saaro هولون هذا عاو عصافك ودقية مقطع حرق عصافك وكعصنا عاو ودقية عصافك هرمود مو هو عاو حلقة هلا ها صحوة ما حد فكره كقبتها هرمود فير إدقيس هرمود مشرح كست محل حسن الشيخ هرمود أيضا فينجريسي Soomaaliya meesha kaliya oo wax laga wado dhinac walba ay noqoto wala dawlad wala cid kasta waa jiheeyaha ayada hadba dhinac u jiheysa wax ma fahanti wax kastana way la socdaan maaragtay dawladda ayada maamusha dawladda ayada maaragtay qofkii maanta wax raasanay u raasato marka waxaan wax alf waleel waa eedeyntan aan hadda soo jeedinayno maxaa ka jira is leedahay eedeyntan tusaale hadda siyaasadda iskamaan hadlin waxaan ka hadalnay qodobadan ay ka mid tahay tusaale ahaan hegardaamo ay ku hayso bulshada Soomaaliyeed ama dhagaaro oo shirkadda Hormuud horseed oo ay ka mid tahay tusaale ahaan aan ka hadalnay maaragtay inay tahay maskaxdii lafteedu qayb ka kula ama dhikar maskaxda ay soo dhex marto shaab soo dhex maro logistikada oo ay logistika kaydka dhaqaalaha inay tahay maaragtay hegardaamada ciidanka ugu dambeyn qodobka u dambeeyo ah sirta shacabka ay gudbiso arrimahaas maxay karnuma is leedahay jihee ma taqaantaa macnaheeda jihee waxaa la dhahaa jihee mid wax walba u jiheysaa la dhahaa wax walba ayada jiheeye waayaba shacabka ayadaa jiheysa
dowladda ayadaa jiheyso afduubayaasha ayadaa jiheyso yacni waa jiheeyaha waddanka jooga waaye qof walbaana ku tiirsan dowladda ku tiirsan maaragtay shacabka unbaa gacan galeen ma ogi inta kale waxa waaye waa ku tiirsan yihiin maxaa loo kala sheegaya ninka oo maanta afduubayaasha marka telefoon lagaa soo waca le guri markuu qofka gato la soo waco waxaa leeyahay lambarkaasa raadso qofkii kusoo lacagtaas iska dhiiba leeyahay iyo intee kusoo arkeen hadda waa aragtay yurubaa joogaa haddaad tiraada lambarkaasa aniga dhibaato ku qaba waxaa wacaysaa shantaraalkaa wacaysaa waxaa leedahay lambarkaasa aniga waxaas igu sameeyey ama kaas igu sameeyey waa igu samayn karaa maxaa dhacay qofka dhagdhagdhag sharcigiisa wixiisa dhanaa lasoo saaraya maala dabagalo dadka maala dabagalo dowladda may dabagasho maso hadee waa maxaa la sameynaa ma dabagelayso wax walba waa la dabageli karaa laakiin indhaha laga qabsanooya abo yaa waxaas alif waleelaa la wadaa finkaasa noola keeni dheh marka waxaad leedahay eedataan wax saxa waaye aad leedahay waa ila qabtaa waa sax waay wax sax waa jiheeyo meel kasta u jihaysaa meel kasta dowladda xataa waa gedin kartaa anta sama aamsanahay dowladda lafteeda qalibi kartaa meel walba dhinaci rabta adduunka ku wadi kartaa waa jiheeye aad iyo aad saar waa maasantahay guulayso maasha allah saar waa maasantahay saar waa maasan tahay aad iyo aad waa maasan tahay run ahaantii anagu ataga gaara iyo weerar gaara kumanin waxaa eedeyntaan wax biyo kama dhibcaana waaye run ahaantii shirkadda harmuud oo bannaan tahay inay beeniso eedo dad badan oo usoo eedeynayo ayagoo ujeedooyin kale leh waa ogeyn oo weligeen kamaan hadlin dana SW TV laakiin hadda waxaan ognahay ciidamada hadda dhaqaaqa tusaale soo qadan waxaa lihi meydka keebaa udbay waa kii hadda la sii wada ciidamada hadda dhaqaaqaya laftooda ayaa dhibaatooyin badan ku qaba markay dhaqaaqaanba isgaarsiinta laga jara maxaa keena marka in ciidanka dhaqaaqooda iyo isgaarsiinta in laga jara wuxuu yiri sacnaas adaga weerta maxaa kulmi bal dhaqaaqa ciidanka ee dhaqaaqayaan maxaa kulmi waxaa kaloo jirta hadda lafteeda soo gaara waraab beesha runtii hormuud waa shirkad beelo badan Soomaaliya ku jiraan laakiin beelaha hormuud ku ah beelaha waxa xagal daacinaya laftooda waxay kamid tahay lagu leeyahay ama eedahaas lagu eedeeyana waxaa kamid ah in ayagu laftooda ay qayb ka tahay oo runtii la leeyahay shirkadaas lug bay ku leedahay eedeyntaas way tahay alo salaamu calaykum magacaada halkaa joogta abba halo faisima ma soo geli jirin ku daraya فايس ما مقشع هم سوقل جن عاو اكسترا واي فايس ورنتا عاو سو ما قل جن لكن دنا كنت برنامج حساسي ولا قال لي او رنتي مهمد لا واي رنتا احمد برنامج ورنتا سما فايس horta waa la socda horta waxa weey walaalow meeshan dad masaakiin oo shicib un baa loo tashaday ma garat qof ma rabo inuu wax sameeyo ma garat dawlad ha ahaato taliye ciidamada shirkada hormuud ha ahaato kulli dhiigaaga ay ku shaqaystaan marka dad dhiigaaga ku shaqaysto hormuud hadday ku tala gasho inay xakamayso nimankan yaryarka ah way xakamayn kartaa dawladda hadday ku tala gasho inay nimankan xakamayso way xakamayn kartaa sax taliyaha ciidanka booliiska meesha haysta oo la soo marayo ninkii markaa joogay gaariga uu soo maray way ogyihiin dawladdu laakiin adigu axmedow yaa kaa xishoonaya yaa ku raba adi shicibaa tahay miskiinaa tahay qofna kuma rabo ilaahay unbaa ku raba soo ogin marka dad noo wada heshiiyey aan ku dhex jirnaa annaga maati masaakiinaa nahay codna mali fiiri haddaad axmed maanta cod leedahay oo aad quality leedahay oo cod lagaa rabo inta lagu soo kor istaago laba nin hebel baa amiirkayga ahaa iyo hebel baa amiirkayga ahaa korkaaga ma ku dhigi kari lahaaya maya waa hataa waxaasoo kale inayba ka hadla mawduucaasba muuqaalkooda sawirkaaba aad ba aan u qurxoonayba marka inayba ka hadlaan amiiraan soo ahayn oo meesha lagu raaxaysto dhiigga shacabka Soomaaliya soo galna waa macnaheedu waxay ka mid tahay in aan haddana geli karno nimankan amiirada isu ahaa inta maxkamad la geeyey oo maxkamadii ay soo ansixisay inay dambi lahayn oo madaxweynihii ama dawladdii markay haysatay intay soo istaagtay nimankan dambi ma laha ay dhahday oo maxkamadii caddayn ay ka keeneen maa lagu weydiiyey suu u ahaa ninku qarxiyo oo ku dila baa berri waxaa lagu dhahay
intuu kusoo hor istaagay kana madaxweyne maamul goboleed waaye kana wasiirka cadaaladdu ku yahay adi cod ma leeda marka axmed oo ii sheeg ma waxaad leedahay ma jiraan ninkii shalay ku dilo bulshada hormuudka dhibkooda u geystay weli taagan tahay marka faa'iis waa runtaa dhibaatooyinka uu geystay iyo fikirka uu geystaa weli dad lagu laynaya mas-uul ayaa laga dhigtay marka waa xanuun ka mid xanuun ka mid bulshada Soomaaliyeed waxa ay ka mid tahay waa la garan oo la fahmay fiiri axmed hormuudna nimankaas ay ka mid tahay maxaa yeelay midkan ah hormuud furihii waddanka ay haysataa oo dowladda Soomaaliya ilaan jireen hadday Soomaaliya nabad ka dhacdo ma haysanayso dowladda furaha kala wareegaysa marka waxay qabanqaabinaysaa inay nabad weligeed dhicin oo sidan lagu jiro ma garat dadku xayawaan ma aha ninkan meesha taagan oo xisbiga hadda lagugu baabi'inayo oo lagugu laynayo aas-aasay oo haddana maamul goboleedka gobolka ka ah dad ani waxaan u arkay daraad markay hor fariisteen hebel amiir iyo dhaqdhaq la dhahay dhalinyartiyaaba la dhiirigelinaya yaan ka bixin mawduucina ku noqono Faa'iisa adiga see kula tahay hormuud in ay waxaan caaw eedeynta shanta qodoba maxaa ka salaad isleedahay ama waxaad ku tuhmaysaa ma jiraanin inay sabab u ahay sababta waxaas lagu eedeyn karo axmed waxaan shicibka Soomaalida ahayn fiiriya waliba shicibka Soomaalida oo masaakiinta boqolkiiba in badan oo shicibka iyaga ahna way jirtaa in yar oo shicibka kamid ah mooyaane waxa kaloo dhan waa nimankaas hormuud baa u shaqaysa fiiri hormuuda u shaqaysa ganacsataa u shaqaysa boqolkiiba 90 iyaga way la shaqeeyaan hormuud way la shaqaysaa fiirigu wuu la shaqeeyaa kan jidka taagan wuu la shaqeeyaa kan maamulka kuwa wuu la shaqeeyaa adi intee ku fakanay axmedow yaa u fakanay والله حنون كذا لا لكن إن القرية ما وشركة ديجا ذكر عشتوه أنا وكله فيري أنا وكله بنانك كجوجنو واحد ذكرنا لكن أنا كل هاي بقول كي بسجاشن يشن ضد مساكين أو يرمى هني أنت كله ومشروعي إسكتان أو إسكتان فقرته فيري أنت هلا أحمد فيري كبر ده ليس عمال سو مرسي وين نقبل سوق عدوير بابورتا أركتين وضد سو مرتا سو مسلسل حيران ما ولا الحرك حيران ضد كورت الدقمة معها موقت يا ضدك دقمة معها مشروعيا نقولنا لقو فرتي واي ديكة سومالي لقو بنايست الربعين سومالي لقو بابيو إسكو وذا حين إسوى ذا أب هذا هرمود وحي هيسا سيميكار أنا هذا سيميكار بانك هادليا وحي أنكو هادليا هادي أنت لو دون الشركة دايدا أيها لمبركي وحي سو وذا بحيا ما قرسومي كرتا نعم أنت لقو سووعه أو لقو دوري على عكس أشوف oo shirkadii ku soo shubtid hadaan shirkadii la weydiin karin oo dhihi karin lambarka aan lacagta ku soo shubay qofkee iska leh ma la shaqeyso lama shaqeyso internetka Soomaaliya active ay ku tahay way taqaanaa dad active ah oo meel kaga active baa jooga haday ku tala gasho laakiin ma rabto marka walaal dadkan Soomaali waa loo heshiiyay waxbana ma qaban karaan waa masaakiin shicibkana waa masaakiin كان دولة كجرا شباب هرمودا شباب أمسام تكون جوتا شباب كان إسبيتال كجوجا شباب كان أسطدا شباب كل ولا وذيه هذا كلام بابينا بنت اللي سوق شيء لكن هلك وين وحصامران تلمانت هلك أمرون توين وحصامران وحليك لو شباب وشركة هرمود إيوه شركة هلا ما لفتوا وحاول كم دور هرمود كليب ما شركة كلها نم بلفتوا والله واحد دوريان ملا أنت بدن waxyaabo badan bay iskaga mid yihiin maadaama dhulka ay joogaan shabaab ka shaqeeyaan maadaama logistikadooda aan la controlin inta dhammaantood waxa ganacsatada dhanba waa wax wada shaaba hantida shacabkooda hantida ay hayaan ayaa dadka lagu laayaa hantida ay bixiyaan ayaa dadka lagu laayaa hantidii shabaab ay hayaan kobciyaan guri ugu gadaan mas'uulkiin waa maqlaysay axmed waa maqlay qodbadii axmed madoobe waa maasantahay mawduucaas waa maasantahay Faiz aad waa maasantahay halo salaamu calaykum هلو السلام عليكم ورحمة ما قاعد لك جوت عليكم السلام ما قاعد لك جوت برادر هلو حماي انا اسمق له وينو هلو السلام عليكم هلو هلو السلام عليكم
عليكم السلام ولا لسيتها magacaada halkaad joogto barnaamijka dal la socotay oo live waa barnaamijku ولا وحان جوجا سود أفريقيا مقعيقنا فرحية ليرادا kusoo dhawaas WTV Soomaali Wadani TV barnaamijkuna wuxuu diirad saaran yahay haddii aad la socotaba shirkadda Hormuud maxaad ka aaminsan tahay eedan ayaa usoo meesha loo soo jeediyey eedantaasu aan hawada usoo marno 5 qodob inay qayb ka tahay shabaab oo ay maskaxda shabaab ay tahay in ay ii sheeg maxaan ku raad logistikada ka caawiso inay keydka shabaab ay tahay inay tahay marta hagardaamooyinka marta ciidamada qalabka sida ay hagardaamayso sirta shacabkan ay fuuso intaas eedood waa eedantaas wax wali aad waxaad warbixin aad ka hayso iyo shaki aad ka qabtaa ma jiraan والله هرتا إن الله وإن لا راجعون أنت لما الله ونحريستو صومالي ملكس أيجوكتو وقطع السيدي أنا يا جريدة صومالي أو دنا يقارتي دقاسا ملاهن الله ونحريست دتك شر الحسوقي اللي بعتذر المصيبة يكون علي مد حكتو إن ولا الرأي عن كدي بنا هرمود وحواي هرت هرمود دولة السن وما أنت عجيد كنت عن أو صومالي فكنت معهم وكمبني شركة marka dawladda loo baahan yahay inay la xisaabtanto oo gacanta ay ku dhigto xogaheeda dhan dawladda ayaa looga baahan yahay macluumaadkaas inay u guda gasho dawladdu haday shir la tahay ka war madaxda dawladda day shir ku leeyin ka war ma la xisaabtama inay kula tahay dawladda inay la xisaabtanto way ku qasban tahay wax kasta oo wadanka iyo dadka iyo dalka iyo diinta qalqal gelinayo oo cirib tiraayo salaam waxa laga yaabaa in madaxweynuhu shir ku leeyahay in wasiiradu ra'iisul shir ku leeyahay nin saas marka shir meel uga jiray suuragal ma tahay marka taas in la xisaabtamo oo shir ku leeyin adiga ma umaleynaayo inuu maanta madaxda Soomaaliya ama qaranka ama oo ka talanaya marnaba ay ogolaan doonto ama raali laga noqon doono yani xasuuqa dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta ah oo jidkii loo soo mar lahay maanta inay lug ku leeyihiin ma umaleynaayo waayo wax isweydiina oo loo baahan yahay in wax la isweydiiyo xukuumadda iyada dagaal kula jirto ee shacabkeeda oo hadeer fadhiga ka kaceen oo soo baraarugeen oo shabaab iyo argixisada ka soo horjeedaan oo jidkii lagu ciribtir lahaa maanta oo madaxweynaha u taagan yahay halgankeeda ma umaleynaayo inay yani uu waafaqsan yahay hormuud iyo waxyaabo lamida yani sidii Soomaali loo dabargoon lahaa inuu madaxweynaha garab siinayo ma umaleynaayo laakiin waxaan dheelahay Soomaali markas ay joogto inay isku tashato hormuudna ay tahay kambeyn Soomaali fiir wiilka ganacsatada wiilka haysta maxaan ku raadaa ganacsatada ee baqaarka haysta ee bal laga yaabo inay $200 ay shabaab u diro malaayiin doolarna ay bixinayso shirkadda hormuud ay malaayiin doolar shabaab siinayso labadooda keen wax la qabto mudan ملايينك كان بحناية وحواي قفك وجهرية يعني حكومة جعان كل جرا دينه نقطة لقي أباك مركز سو حكومة لفت الروايد يجي ميس مركز كاسنا كعادة تاعي كنا إيسن تلاب كقادين سو مركز ما قيب كمان لما ديك رسول قيب كمان مركز كيركا لما بقول دور بحناية واحد يرجلنا يكون وأركي مركز هريتو سوقك وحب بحناية سوقك يعني وآمن سيهاي لكن حكومة ده لجربها شركة يموادن يجرع الصدق إنه جعان تقول كتو هذا بقى شو وحكي qabato qaabka ay wala xiriirayaan argagixisada waa ma santa bay al-aziz guuliso ma sha Allah guuliso bay si kasto oo xukuumadda si kasto al raba xukuumadda yani jid kasto inay ula dagaalanto ganacsatada aad in ula dagaalamo u baahan aniga ganacsi kasta ay leeyihiin telefoonadooda la ogaado maxay shirkadaha la ogaado la daba galo argagixisada ninka maanta qarax soo qaadaya masiibadan ogaayo وشركة وياكين قصبين وياكين ولا مرة مكوكادمو شركة بيكوسو ساريسا العقبة كادمتو شركة بيكوسو علنيسا لامرك أنا كقاتل العقد كليهين بيكوسو علين محيو أوجان وين كان قرح اسكت بالردايو كان قرح السي ولا بجاج تكوسي ولا كان سوق لنا يا حمر كان العادة كل ما صدتها إلا الشباب هذا ما صدتها أباي هذا ما صدتها ما تكاجرت تايم كذا ما صدتها هلا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا مقعد يلك جوت. مقعد قلت حاجة وحن شوقا لندن. قلت حاجة ما تري. قلت حاجة. حاجة كان قبنا قلت حاجة ما تري. قلت حاجة.
oo London joogo waay waayahay ganta xaaji barnaamijka hore u la gal socdaa. barnaamijka caawa haddii aad la socoto waxaan caawa aan dhegtig haysanaa shirkadda baaxadda weyn ee barakadan oranay hormuud caawa eedeyn baan kusoo dul saaray marka haddaad la socoto barnaamijka eedeyntaas bal maxaa kaaga baxay wax weyn baa iga baxay lianna wax aysan ogeyn ama wax aysan raalli ka ahayn ma samayn karaan waayo adduunka waxa hogaamiyo waa isgaarsiinta waa gar adduunkana intaa ku noolahay adduunyadan waxa waaye wax walba oo dhaco taako ayaa loola socdaa nin walbana wuxuu qabanaya teleefonkiisa lala socdaa haddeertaaneto yurub aan degannahay teleefonkaaga haddii lagu dhaho warayaa ganta xaajiyo waxaa u baahanahay waxaa joogaa turkigaa joogaa tahriibaan oo aamus aan leeyahay ilaaha ii sheegi gaas ganta xaajiyo gariiga joogaa baasboor ha igu sheegin maxaa u dhahaa intaas waa leela socdaa soo maa sax marka wixii oo alaabtaana wadnaa iyo kanaan samaynaynaa iyo kanaan qarxinaynaa dhooyaan waa la socdaa way og yihiin xogtaas oo dhan ayagoo waxaa walba la socdo ayaa laga sameeyaa xamar marka waxay raalli ka yihiin waaye ummadda baabiintoodana qayb bay ka yihiin hormuud laakiin in lala xisaabtamo cidda inay la xisaabtanta la rabo soo xukuumadda maaha marba haddii hadda ay leedahay xukuumaddu ay ra'yi wanaagsan oo la dagaalanka argixisada sida noo muuqata sawirka noo muuqda haddii uu dhab ka yahay halkii ay ka eriye lahayd ganacsatada yarartaa soo lama rabo inay ganacsatada waaweyn la xisaabtanto marka horeyso laga soo bilaabo kuwa malaayiinta doolar siinaya oo gacansaarka leedahay ama la shaqeeyo meelahooda la degan oo la ogyahay sida shirkadahan isgaarsiinta hormuud keliya maaha shirkada kalaa jira laftooda oo gacansaar la leh shirkadaha xawlaadda xataa ka mid a soo in ay kuwaas laftooda xoogga la saaro ma ku wanaagsan marba haddii ay waddanka lala dagaalamaya cadow maarata shacabkan kala reebay qaladaadka ugu weyn meeshay ka socdaanbo hadda kambeynka la wado ama dagaalka la wado meesha laga bilaabo ma aysan ahayn bilaaga hore waxay ahayd boostadii isgaarsiinta xarumaha kulli isgaarsiintooda inay qeybo laamo ay ku yeelato qolada isheeg oo nisa sax in ay isgaarsiinta oo idin ayaga qabsadaan dowladda ay marka hore qabsato isgaarsiinta markay dowladda qabsato warbixin walba ama xog walba ay dowladda meesha ay ka maamuli karto in ay duulaan qaado ayay ahayd ma ahayn inay duulaan qaado ayagoo intaas leeyihiin ganta xaaji hadda waxaana soo gaaraa fiiri waxaa lagala soo wacay maaragtay galmudug waxaa nagala soo wacay hirshabeelle waxaa noola sheegaa ciidanku markii caawa ciidamada qalabka sida weerar inay caawa qaadaan la rabo isla markii waxaa laga jaraa isgaarsiinta marka shirkaddii amar waxaa siinaa shabaab marka haddiiba amarka shabaab qaadanayso oo howlgalkii socdaba ayadoo dhabar jebinayso sow qayb ka mid a ma aha shabaab waxaa diidaa inaysan qayb ka mid ah inay shabaab tahay miyaad diidaysa waxa ugu waaweynbo waxaan abuuray ama rabo ama samaynayo waa shirkadaha ugu waaweyn ee ganacsatada iyo nimanka lacagta leh waayo isla xisaabtanka imaan doona ayaa qof walba uu diidan yahay dowlad markay dhalato wadda walba kala dambeyn taxi canshuuro iyo wax walba ayaa imaanaya marka isla xisaabtankaasi ayaa laga hortegayaa mar walba waddanka inuu xaaladaas ku jiro ayaa loo baahan yahay ninkii xoolaha haystayna ilmihiisa nin walba oo maanta lacag lehna ilmihiisa kan ugu liita oo ugu lacagta yar waxay ku nool yihiin turkiga kan kalena waxay ku nool yihiin yurub waxbarasho iyo wax walbana way u haystaan asiguna waddanka ayuu wuxuu ka sameeyaa si dhaqso ayuu lacag degdeg ayuu u sameeyaa waayo wuxuu geeyaa alaab oo valid ka ahayn soomaaliya xamar haddeertaaneed haddii aad tagtid waxaad arkaysaa anigu waxaan tegay 2015kii iyo jaajar iphone ayaan ka soo qaatay jaajarka iphone-ka ah 5 minute yacni markaan geliyo wuxuu yidhi 72 hours ayuu kuu buuxinayaa jaajarka iphone weligii ma arkay 72 hours jaajar buuxinaya waddankuuga waa low quality ya waa low quality waa low quality maxaa keenayo haddii ay jirto waddan sharci la wehele dowlad leh low qualitygaasi uma tegi lahayn
waa la diidi lahay lama ogolaan lahayn marka qashar dhan waddanka lagu saxba qashar dhan lagu laxsataa taas waa fahmnay dhan kale ganta xaji haddii taleefanada waxaad ogtahay kuwa ugu aad u adeegsan waa shabaabka oo dadka lacagaha looga aruuriyo haddii aad caawa soo waca shabaab ama uu lacag keen ku yirahdo lambar kaa soo waca lambarkii aad weydiinaysa shirkadda waxaa leedahay shirkaddii aad wacaysa waxaad leedahay shirkadda lambarkaas ayaa shabaab iga soo wacay markaan la soo wacay niman baa soo wacay maxay shabaab waa lagu leeyahay saaxiib la macaamil lagu marka inay ayada lafteedii raalli ka yihiin balogay saarnaa taleefankaasoo kale in hawada laga saaro oo ay kala noqdaan maaragtay isha activenimada kala noqdaan ayaa qaab ahaan nidaamka uu ahaa oo maadaama taleefanka uu dembi lagu galayo marka ayada lafteeda meesha dowladdu lafteeda focus ay ka saari lahayd shirkadda inay dadka weerar ku hayso dowladda ay leedahay dadka waxa siinina war ninka hadduu si soo wicin ila soo xiriirin ama lacag la siina waa maya waa mugta shirkaddii marka hadday u fududaysay shirkaddiina samaynaysa sidii dowladda lafteedu eedda sow qaybteeda kuma lahano meel aanu wixi jirin ba wax ka raadin mayso shirkaddu sows ayadu lafteedu bannaanka isma keenino ma aha garabka koowaad oo shabaabka uu ku shaqaysanayo qoriga uu shabaab wato sow shirkadda noqon mayso taleefankeeda exactly waayo nimanka hadda anigu qurbi joogta ayaa ka mid ahay ilaa iyo 1996 ilaa hadda niman badan oo qurbi jooga waddanka ka guuray maalintii waxbarashada hataa waddamadan yurub ayaa laawday ama ay xumaatay ayaa waxay ii sheegeen waxay igu yidhaahdeen inaan waddanka u guuro anigii caruurteeda markaasaa ku yidhi waddanka nabadgelyo kama jirto markaasaa laigu yidhi daarasalaam iyo حتى شيء قتادو تقول مسلمين وبوقن كرا وافهم سنة وحرمها هنتيدو تالوا شبابك وإلى شان وافهم سنة كسر عمرك قدام بيتي أضاف قلت حاجة كيف السنة أنت عاو حلها أحمد أوصل بدي جاي طبعا كو أدينا وجود بيكمل معاه سما يعني حاسس الشيء قديل ويرا دار السلام وانتو تقول ايو كفيك عاوي كرا وفريسك كرا اتكل هلا يسمالا كليس اسونا تا ستاف ودنين مركو كسو ومقالة سو قلا ايو ستاف دار السلام الا ايو 5 كيلومتر مركو سو قاف لكن اسا يسيلالنا ما يكون عدين كرتا واتو سؤال بدنا مش كجرا marka waxyaalaha ugu waaweyn dagaalanka u baahan ama raashinka u baahan waxyaalahaas ma aha ma tahay laakiin meel cilaa dadku amniga iyo sida u shaqeynayo meel cilaa wax laga raadinayo soo lama dhahayo ruwaayada la jilaa soo la dhihi maayo marba haddii looba jeedo wixii gacanta weyn ku lahaa oo ka dambeeyey waxan in la iska indhatirayo oo aad moodaba in ganacsatada wiilka yaroo dukaanka haysto laleeyahay shabaaba wax siisa laleeyahay la haystaa in shirkaddaanu malaayiin bixiso wiilkaana $200 ayuu bixiyaa kanina wuxuu bixiyaa $200 maarta $2 milyan ayuu bixiyaa marka saw maaha wax la iska indhatirayo soo maaha dee marmarka qaar anigu waxaan ku fikiraa aan isilaaxdaa madaxda iyo dowladaha hadda lasoo dooranayo iyo wax oo dhan iyo electrika ama wax oo dhan ama filinkaani soo afjiridiisa yani filin sidiisaba hadduu bilaado yani hadduu dhammaado filinkaas yani sheeko dhan waa isku dhammaado soo maaha waa isku dhammaado marka ruwaayadda waa nool jira marka مسلسل واي مسلسل كان مسلسل وحوسعون كرا عرفت مسلسل هذا مسلسل وحوسعون كرا إلا تدوات سديتا بقول كنتر بقول لحدا لا بقول سدح بقول وسعون كرا سوما وبنا مركا waa مسلسل iska socdo waa ma san tahay ganta xaj aadan kaga madcina saaxiib waqtiga qaaliga waqti fiican oo kusiyo ma seen anaga daan SWTV Soomaali Wadan TV magacaad sida uga dhahataan ama la socotaan anagu waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay dal wadaniyad dalkan naga iskale cid aan uga heebeysanayno ama qolo aan soo dhaweysay qolo aan fogeynayno midna ma jirto waxaanu ka hadlaynaa waa xaqiiqada dhabta ee dalka jirta muhiimadda aan focus ku saarayno waxay tahay inta badan warbaahinta dalka jirta ama media dalka ka jirayo waa media inta badan shakhsiyaad siyaabo gaar loo sameeyo wadana gaar ahaaneed ama dhaqaale laga sameynayo dhaqaale dartiis inta badan ku xiran shakhsiyaad iyo meelo gaar ay ku xiran ayagoo marba iska ilaaliya inay runta dah ka qaadaan waxaana marka noo muuqata waxaa marka meeshaas ka baxay hanaankii dowladnimo inuu si sahlan uu ku maradhali waayo ood arkaysaa xukuumad kasoo timaada inay dhicisto mid walboo timaadaan ay fashil afka u gasho waxaa inoo muuqata caawa markhaatiga kaga tihiin bal waxaan idin xaqiijinaa igaa markhaatiga ka tihiin
in caawa ganacsata dowladdu ay tiri ama dowladdu usbuuc la soo dhaafay ay daha ka qaaday in lala si dhaqaalaha dagaal weyn lagu qaadi doono dadka argixisada maalgeliya dowladdu marka inay indhaha iska xirto maaha fiiri dowladdu indhaha iska xiraysaa dadkan indhahay ka xiraysaa bal arag ganacsatada bakaaraha joogta ee baqaarka leh la soo wacay taleefanka laga soo wacaya iskale ganacsata ninka ganacsatada ee bakaaraha jooga haddii aan la soo wicin armaa lacag laga helaya horta fiiri meesha sahalka laga goono anin booliisaana sarkaal booliisaana meesha waxaa falku ka hortag u leeyahay falna waxa waaye ka dabatag u leeyahay fal kastoo dhaca falna waa ka hortag buu leeyahay falna ka dabatag buu leeyahay falku haddii aad informationkiisa haysto ka hortag u leeyahay haddii laakiin falku fal aan hore u dhicin nuuciisa aan hore u dhicin uu yahay ka dabatag ayaad ka raadinaysaa marka fiiri caawa haddii aan axmed la yidhaahdo waxaa tahay sarkaal taliyaha gobolka banaadir aa tahay bal ka qabo ganacsatadan ka qabo bal sidee looga hortegi karaa sidee looga hortegi karaa in lacag dambe aan laga qaadin jawaabteedu waa sahlanta baaritaankaadu waa sahlan fiir qaacido sahlan waa sidee looga hortegi karaa ganacsatadaba anigu wici maayo taleefon u diri maayo maaragtay la hadli maayo waxaan leeyahay ganacsatada soo maaha waxa la rabo inaysan lacag siin shabaab horta marka u horeysa talaabta koodan qaada waxay tahay sidee loola soo xiriiraa ninka ganacsatada bakaaraha joogta waa malaayiin waa ilaa kumanaan qof waaye tusaale kumanaan qof waaye ma aha dad yar baqaaraydu waa dhowr nuuc bagaashley baa la yidhahda qolob bacadley la yidhahda qolob waxaa la yidhahda qolob waxbaa la yidhahda waxaan rabaa marka inaan meesha kood oona baarayo oon fiiri doono oon jaasaarad waxay tahay maxaa adeeg kooxahan dhibaatada qalqalka siyaasadeed dalka ka wada maxay adeegsan waa taleefonka shirkaddan wacaani marka shirkadda taleefonka ayaa waca waxaan shirkadda taleefonka markii aan waco waxaan dhammaan ka jarayaa aan kala xisaabtamaa haddii taleefon shabaab qof muwaadin usoo dacwooto shirkaddan waxaan ganaxa 200 kun 300 kun hal taleefon hadduu soo waco oo la ogaado taleefonkaasu la ogaado oo soo waco ganacsatada anoo xataa wax kale ku qaadinba wax kale talaabo kale ku qaadin shirkaddu marka ayadaa waxay xakamay doontaa dadka ay sim kaarka siinayso inay noqdaan dad haddii kale waxaan leeyahay waa inaad shaqsigii qofkan wacay keentaa wuxuu jooga meel shabaab joogo shabaab dhulkuu joogo inaad siisa maaha taleefon marka waa inaad shirkaddu ka soo guurtaa ilaahu 500 qof oo Soomaaliya degan haday rabaan waa inay ka soo guurtaa shirkaddu ay dejistaa anteenadooda ay ka soo baxdaa halku saas waa caawa ninka sarkaal booliisa talaab kale qaadi karaa male fursad kale u banaan male intii taas aan la qaadina saaxiib ma la helaayo mana la arkaayo dalkan nabad ma imaanayso waana halka keliya lagu soo afjari karo aniga dad u maleeymaayo Soomaaliya qabiir ka aqoon badan arrimaha booliiska baaritaanka rag yaraa jira laga yaabaa laakiin waxaan u maleynayaa dadka loodkeena oo shaqadan yaqiinay inay runtii aan shaqaba loo dirsan aan la ogoleyn inay shaqeeyaan laakiin caawa xaqiiqda halka keliya oo ugu fiican waxay tahay haddii la rabo in laga hortago oo lacagahaas dhaqaalahaas dowladdu ay dhab ka tahay inay dhaqaalaha shabaab la siiya ay jirto labaas tallaabis shirkadda loo yeero waxaa leeyahay ma dhici karto in muwaadin Soomaaliyeed taleefon laga soo waco shabaab taleefonkii adeegsan ka soo horta marka horeysa waxaan wargelina shirkaddu mas'uul ma ka qaadi kartaan inaan shabaab soo wicin qof dad Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed waa maya kama qaadi kartaan Soomaaliya macaamiishin kamidin Soomaaliya macaamiishin maadaama ay kamidin adigu marka waxaa tahay shabaab waa inaad hawada ka saartaa macaamiishin ay kamid ahayn waa inaad soo faaruqisaa dhulka ay ka howlgalaan ma soo faaruqini Soomaa ha okay ayaad kamid tahay marka waa inaad banaysaa shirkad kale ay meesha imaanaysa oo awood u leh kambastikeeda leh oo ka howlgalaysa waa ina xisaabta dhabka aan la xisaabtaa ilaa falkan waxaa la adeegsanaa fiiri haddii aad tiraahdo baawurkii ninkii baawurkii fiiri macnaha hubkii wax lagu adeegsanayana ka hadli maayo oo hubkaan aad qofta lagu dilayna xisaabta lagu diri maayo qofta wax dilaan la xisaabtama macquul ma waa in wixii hubkii wax lagu adeegsaday iyo qalabkii la adeegsaday laftiisa aad maxkamad soo keentaa marka caawa haddii la dhihi lahaa Axmed bal arrintan hortag talaabtan qaadi lahaa waxay leeyahay shirkadahan waxaan lahaa bisa okay halkaan isku keenna waxaan u baanahay shirkadaha isgaarsiintu inaysan dhicin lacag dambo haddii ay dhacdo ma kafaala qaadi kartaan inaysan dhacaynin in shabaab aynan soo wici doonin maaragtay ii sheeg maxaa leedahay ganacsatada Soomaaliyeed lacag lana dhex mari doonin lacagaha taleefanada adigu aad haysta shirkadaha adigu aad madaxda ka tihiin maya ma samayn karno maaha oo macaamiil bay ku leeyihiin
اوكي هذا سمي كيرو انا كنت انا كالا نقضا هذا سمي كيرو اين عين وانا او هوغانستا وحي ان كراado maxaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay kow waa inaad kasoo guurtaa xarumaha ay ka taliyaan oo dalbabada isku dhufataa shut down dalbabada isku dhufa marka hore ilaa waxyeelada waxaa la fiirshaa waxtarka iyo waxyeelada aniga haddii aad 100,000 oo qof oo nolosha aad caawa ay shirkadu shaqo siinayso waxaa iga xanuun badan wiil Soomaaliyeed oo dhaawac ama ilka xabad ku dhacday ee shabaab ku qaaday lagu dilay ayaa iga xanuun badan taasaa ka xanuun kana khasaar culus marka waxaa la rabaa in la yiraahdo marka horeysa shirkadu haddaysan awood u lahayn inay qaadato ama awirta hay'adaha amniga ilaa amniga qatar ku tahay oo ah inay ayadoo kafaala qaado telefoon dambe oo soo waca nin bakaar jooga ganacsataa haddii aadan keeni karin ninkii soo wacay shabaabka haddii aadan keeni karin miska soo saari karin fadlan waxaan rabaa inaad ganax qaadato ugu yaraan xataa taas ganaxi waad qaadanaysaa waxaan kuu ganaxa 200 300 kuu ganaxa lacagta uu bixiyay hadday ahayd $2,000 weydiistay waxaan bixinaa adan kaa qaadana adiga 200,000 saasaa marka waxaan rabaa waa inaan kala jari karaa awood aan isticmaalaa kala gooyaa kana reeba hubka cadowgaad markaad ka la dagaalamayso hubka dhigista lagu sameeyaa marka waa inaad marka hore waa ilan shabaab halka adeegsadaan hubka adeegsadaan waa isgaarsiinta waa inaad isgaarsiinta hubka isgaarsiintu waa inaad ayaga kala reebtaa ilaa inta qolada isgaarsiinta inta ay socdaan shabaab iyo ayagu wada socdaan saaxiib fursad aad adiga amniga aad ku xakameyn kartaa ma jirto marka fursad heli kartaa ama jaanis aad ku xakameyn kartaa way adkaanaysaa midda kale oon rabaa haddana inaan ku sii noqdo waxay tahay oon rabaa inaan fahmno xukuumaddii haddii ay ujeedo ay og tahay in taleefonka la adeegsado shacabka marna taleefonkii qaraxyada loo adeegsado shacabkii lacag looga qaato maxay shacabka ugu mashquulsan tahay ay shirkadaha meel xisaabtanto caawa waxaan u malaynaa bal dad badan ay dhibi doontaa hadalkaas laakiin xaqee waxay tahay muwaadin Soomaali dalka u dhaartaanahay u soo shaqeeyanahay waajibaadka ka saaran caawa inaan anigu fuli waajibaadka ka saaran wuxuu yahay inaan xaqa iyo sida xuyin aan u sheego anoo ciidan ka heebisay alla iga marqaatay ciidan soo dhowsay ciidan iska fogaay si jir laakiin muhiimadeedu ay tahay dalkayga iyo dadka inaan u naxo maxaa waa dal aan lacag la'aan wax ku soo bartay waa dal aan u dhashay waa dadkaygi waa maalin ooyin iyo ilma naga socota waa dadkii aqoonta lahaa ee dalkan u shaqeyn lahaa ama dalkan u soo bartay adimada laga xiray waxaa arkaysaa nin aan gobolka banaadir caawa waxba ka gala karin aan ka aqoonin istaraatiiji amni midna aan keeni karin waxaa la taliya gobolka banaadir hataa booliiska muxuu keeni karaa ilaahan ku dhashay asigaaba habaa caawa degmooyin gobolka banaadir haddii sheeg la yiraahdo imise laamood ayaa gobolka banaadir imise degmaa ku taalla 17 degmo imise laamooda hoos tagta dilira ma yaqaan hidoontano imise laamood ayaa hoos tagta imise waaxood iska badaa iyo imise tabeele iska badaa imise waxaasoo dhan iskaba dhaafan ku marka waxaa ayaan darada nagu dhacday kamid tahay hay'ad waxaa waaye runtii waxaan arkaynaa inaan laftooda shirkadii laftooda aan qayb ka nahay dad badan ba caawa ay dhibaysaa fiiri waxaa waaye taleefonku waa meesha waa aaladda maanta hubka ugu casirsan ee la adeegsado waa hubka ugu casirsan ee la adeegsado waa waxaa dadku moodaan gaadiidka war haddaanan marka hore taleefonka aadan xakameynin oodan shirkadaha isgaarsiinta la xakameynin oo dhaqaalaha dalka soo gala aadan xakameynin oo halkii bangiyada aadan xakameynin xabadda dagaalka weligeed dhamaamayso markii xabaddii ninka waa gadan karaa ciidan dadna waa heli kariyaa marka waxaa waaye darana haystay kamid tahay halo asalaamu calaykum brother halo وعليكم السلام abay magacaada halkaa joogta مرواس على دا مريكنا الجوغا ولا marwaas maraykanka joogta barnaamijka la socota marwaas ها haye laba daqiiqo soo waa barnaamijyada soo dhawnay laba daqiiqo ka faa'iidayso bobsi waxaad ra'yiga aragtida qabto caawa aragtaa waxaan ku dheganahay isgaarsiinta isgaarsiinta horta aan kaaga dhaco isgaarsiinta meesha oo galmudug ma aragtay ayagaa ka burburiyeenba inay kasoo guurto dan iyo heella kama laha nimankan waxay haystaan lacag kayd ay haystaan oo laacala waxaan way kasii talagaleen moogtaa haye shirkadda inay ka guuri karaan ayagaaba hadda galmudug oo kale way ka burburiyeenba maba lahanba anteena hataa ayagana ma isticmaalayaan shacabkana ma isticmaalaya meelo badan oo kamid a dan iyo heellaba kama lahanba hadday ka guurto xitaa tan kaleeta aniga horta waxaa iskale aniga waxay ila tahay dadka ammaanka
gobolka banaadir iyo gobolada kaleeto loo dhiiba ayaa istubidiin dad waxa weeyaan kuwaasoo loo dhiibay kuwii dhiibso kama sii kuwii u dhiibso kama sii liitaan kuwii u sii dhiibay iyo kuwii loo u dhiibay iyo kuwa hayaba niow fiiri dayac fara badan baa aniga meesha iiga muuqda ma fahantay xoolaha ayaa ka carara meeshii ay bahal ku arkaan maalin kasta hal wado iyo hal meel inuu lagu gumaado oo cunuga iyaga dhalanaya uu ku sugo bartaa sidii loogu dili lahaa waxaan caqli ma aha niow waxaan miis dad bini aadan ahayn dadka meesha ka shaqeeya sidayba niman xun oo Facebook ku wada jira oo sawir oo hadday isku sheegalayaan sawir iska soo qaadaya oo hadday seexanayaan sawir iska soo qaadaya baa meesha mas'uulka ah ma fahanti صح dad u qalma iyo mideeda kaleeto adduunka waxaa la isticmaalaa tacticada way badbataa moogta waxaa la isticmaalaa qorshaha markaad rabtid inaad adiga waxa ku muhiima inuu aragtida adiga aad leedahay inay kugu hirgasho qasab ma ahan qofka kula shaqeynaya qofka uu yahay iyo sidii adiga aad ku gaar lahayd goolkaas aad ku gaar lahayd waa inaad fuushaa nimankan waxay isticmaalayaan argagixisada waxay isticmaalayaan dad expert ah oo shanta qaaradood adduunka la isaga keenay ma fahanti waxaan dadka shacabka in la gumaado dagaalkay qayb ka tahay waxay rabaan dadka shacabka inay abayuusaan oo caafimaadka inay abayuusaan ay rabaan oo dadka shacabka ay ku abayuusaan macnaha dawladda ay weyso meelay wax ku daaweysato ayaga dadka danka ma laha wixii dhimanaya ayaga waxa uu muhiim ah hadafkooda inay gaaraan hadafka ayaga ay leeyihiin inay gaaraan dawladda marka iyo dadka la joogo kama go'na hadafka ay leeyihiin oo gaarayaan ma jirto ba ma fahanti yalla ciise waa ma santa ba waqtigan ugu dhamaaday jaanis sira dadka laba qofood siina insha Allah ma santa Allah ku dhowro aad iyo aad ma santa halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. magacaada halkaa joogto أنا waxaa la dhahaa cali cali oo barnaamij mala socotaa wadanka wax aad iyo aad u dhageysanahay cali oo haye barnaamijka haddaad ka fahamtay adle oo horu galma yaabo inaan gudo kala rabaa haye gudo gal cali meesha joogtan ma loo sheegin haye wala maqlo walu mal cali halkaa joogto laakiin ma sheegin wata haye anigu fikirkaygu wuxuu yahay nimankan waxaa looga hortagi karaa oo la iskaga dhicin karaa markii nin shabaaba ama dhalinyaro ah lasoo qabto teleefankii dadka lacagta ugu soo xawilay waa loo jeedaa waa la heli karaa in la wareystababa ahba adduunka macluumaadka ugu jiraa qofkan qof soo diray waxaan wax NGO la isla og yahay oo isku xiray inuu yahay aaminsanahay shirkadda la dhahayo hormuud xataa waxaa xoolo ku leh dowladda xataa xoolo ay ku leedahay macnaha maaha wax macnaha dad qaas ay leeyihiin kulli marka waxaan wax la isla og yahay ummadda in dhiigooda la miirto oo leesla cuno dadkan la dubto hadda tusaale ahaan waxaa Daaru Salaam soo qaadateen midda kale dadkan siyaas bar dadkii buriyay Soomaa dadkii siyaas bar buriyay war maxaad afar dhalinyaro ah oo waxay yihiin aan la garanayn maxay habeen imaari idin qarxinayaan tusaale ahaan oo kale dadku haddii maanta intuu nin dhalinyaro ah oo soo hadlo dhaho dowladda u sheego oo ku yiraahdo inaa arkay wax qarxinaya arkado dhaho ninkii asaaba dowladda isku aaminaynba haddii laakiin hadda maanta adduunka maanta ku nooshahay marka askarta wacdo waa lagu hambaliyana waa lagu soo dhaweynaa inta laakiin hadda wax sheegto lafahaaga u cabsanaysaa lafahaaga u baqaysaaba ninkii wax u sheegaysa ama ayaga yahay isla waa cabsanaysa qof kale waa cabsanaa laakiin wax xaqiiq waa biyahaba sababtoo hadda waxaad ognahaba saldhigyada booliiska oo dhan meel walba waxaa haysta shabaab niman ahaa ka soo goostay oo marka hore shabaab ahaa ama hadda weliba gacan saar la leh oo shabaab dhaqankooda qoftiba say kalsooni ku qaadi kartaa ama ay kugu aamini kartaa xog say ku sii kartaa waa runtaa marka dhibaatada marka jirtaa waxay tahay dadku qofku waxa la leeyahay hal sheega hal qofkii ma sheegi karaba ninkan haduu xaafisar uu soo weeraraa asaa la dilaaba yaa wax ka qabanayo wax ka qabana hal tusaale soo qatima shalay madaxweyne waxa ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu la dagaal sida ayaga sheeganayeen wuxuu la dagaalamayay shabaab waxa ka sii horeeyay xasan sheekh waxa ka sii horeeyay Sheekh Shariif tusaale ahaan mana tusaale ma aan rabaa macnaha ninkii markii ay xilka ka dagaan ay shabaab isma dagaalanaya ciidan muwaardiye fiican ma hayso lama dilo lama ataago lama bursado waay ninkan la dagaalamayo macnaha dhalinyarada la dagaalamayo qoriga u wato markuu xilka ka daga maxay u dili laayeen xamar uu jooga farmaajo xamar uu deganay farmaajo waxa ka sii horeeyay xasan sheekh xamar uu joogay waxa ka sii horeeyay Sheekh Shariif xamar uu joogay maxaa loo dili waayay ayaga dadka loo dilaa taas in la isweydiiyaa muhiim ah dadka ay fahmaan
war waxaan waa NGO loogu talagalay dadkan ila meeraso aad iyo aad fahmo waa maasan tahay Garacio aad iyo aad ma tansahay waa maasta bal markaana waxaan isku daynaa inaan insha Allah bal soo qabano qofka ugu dambeeyo oo qadka siin insha Allah si aan barnaamijkeena waxaan maleynaa runtii muhiimadeenu waxa aan ka hadlayno waxay tahay runtii muhiimadeenu waxay tahay inaan cabirno inaan ujeedo kale cid kale aan kale saxay magacaada halka joogto adoo maasan insha Allah محمد واي محمد انجليزي جوجا محمد هاي برنامجك عاوة إلبا كقرطة مالنا maxaad ka fahamtay maxaad kala socotaa barnaamijka caawa aan leenahay shirkadan Hormuud hay iyo shirkadaha hal maalaba ay tusaale soo qaadan lafteeda hay والله انه شركه way joojida information ka dhiibaydo qaybta security way laga qaadaa qaybta dadka service ka bulshada ganacsiga hala kabani waxa ahaado laakiin qaybta amniga qusayda waa in kabaniga laga wareejiyaa waayahay ciidamada galmudug hay marka qaybta amniga laga wareejiyo kabaniga laga wareejiyo waayo oo dadka xogtooda aysan helin kii dacwo wada iyo kii maaragtay hambalyo wada aysan xogtooda ogaan aysan kabanigu soo gaakarin macnaha branchiga qaybta macnaha waxaad leedahay oo security-ga iyo xogaha laga wareejiyo ayagu yani dad u shaqeyn noqonin qaybta xogaha laga wareejiyo kabaniga ganacsi waxa sidiisa u socdo laakiin qaybta xogta bini'aadanka yani shacabka laga wareejiyo si aan dadka loo jajoosin waa gartay xarumaha ay ka shaqeeyaan fiiri waxa ku soo wacay adigoo bakaara ku haysta baqaar waxa ku soo wacay nin jooga bakool وشباب لعقتاس أنكارنا ديال بدويدنا جورجاد يهلك دقنته وتلماما سعدات بحدو الشيء مساجك سحيل قد قشوا الشيء مساجك كده كتو الشيء باورك أو تارجيز الشيء مدة كان واحد جرا حاجة بدل واحد جرا ضد كويس كبر نكسرين أسكرت قاركو دول بياكوس على قرادة ودويك اللي عليها يعني قرح سوق دبي واحد نبكو كسر على وجرا شجرة أي فوسطين كحرسين وبابورته وين كجيران بارود يبرها أسكراب كانوا يكبروا حال soo marka dawladdu ha fahanto meesha fudud oo qarax ka soo gudbaayo sababta marka midaas waayo dadku kuma baraarugsanaa garaashada haddii aan telefoon la isticmaalaynin way ka sahlnaa leedahay telefoonka sababtiisa iskale soo inta badan dadku inta badan waxay cabiraan telefoonka wax daladan waa runtii hadii si oo fiiriso qalabka iyo adeegsadaan telefoon wax badan haddii telefoonka laga xayiro shab ma waxay sameyn karaan in kula taa dhaqaale ma heli karaan ma heli karaan in howlgal sameeyaan haddii laga xiro telefoonada ay adeegsadaan soo wax wanaagsan ma aha wax soo dhaweyn ma soo dawladda lafteeda meesha abaarta ma hayn niyo telefoonku niyo eediya saarin iyo xoog la saarin taas ma halo saaro telefoonka wax kaliya adeegsadaan telefoonka ha adeegsaday laakiin telefoonka qaybtaas waa in maamulka oo security waa in dawladdu haydaa alla ciise waa ku maasanta maxamed aad u maasta brother waqtiga gabagab nagu hay halo assalaamu calaykum waxaan rajeynayaa bal markaan ka qaybgalaha ugu dambeeya aan qadka aan insha Allah aan qabanno waxaan isku daynaa marka insha Allah ka qaybgalaha halo assalaamu calaykum halo calaykum waraxmatullah halo barnaamij ma la socotaa magacaada halkaa joogto waa la socdaa walaal haye horugal barnaamijka halkaa joogto magacaada adoo maasan waxaa la yidhaha from Canada waa gartay waxaa waaye barnaamijka haddaad fahamsan tahay maxay kula tahay caawa Hormuud shaki aad ka qabtaa arrimahan soo bandhigna shanta arrimood say kula muuqataa maxaa ka qaldan maxaa ka saxsan isleeda waxa ka qaldan waxaanoo ka qaldan waxaanoo ka saxsan yihiin haye maxay kula tahay alle waxaan ka warramayaa balaayada ka dhex socota maxay ahayd Muqdisho gaar ahaan markii ay noqoto checkpointiyada anigu waxaan ka qabaa dhaliil weyn haye dhaliishaas oo ah markaad joogtid magaalada dhexdeeda aad maraysid oo aad baabuur ku socotid checkpointiga ninkuu ku imaanayaa darawalkuu dejinaa markuu darawalka dejiyana wuxuu leeyahay uu baaray xagga istaag anigii meeshaan fadhiyaa maxaa igu xiran maxaa igu xirnan waxba ku baaraya ma garat wuxuu baarayaa unu ninkaas irida furo leeyahay bagaalid hore iyo gadaasha saas u fiirnaa wuxuu leeyahay lacag soo tuur aniga iyo saddex kale gadaal fadhiisa waxa nagu xiran ma yaqaan mana nafiirin dhaliisha weyn marka waxa u soo jeedin lahaa dadka checkpointiyada jooga oo dawladda soo tirsatay kuwaas dhaliisha ayaguna kale laakiin waxa isgaarsiinta noo saareed shirkaduhu waa meelaha oo telefoonada loo adeegsado ama isgaarsiintu waa qaybta ugu lixaad kale oo lacagaha lagu ay shabaab ku ururayaan
ama dadka dhibaatada ama dadka dhibaatada qarxida ka geystaan marka ayada lafteedu soo cilad jirta maaha in wax la qabto baan kuwaasna naftirkooda waa in wax laga qabtaa sida hormood daabshiil xataa way jirtaa labadoodan waxaa waa in ayagana oo si naxariis ku jirto looga la warramo الله يعزك والله ما هذا ما استطاع حاو هذا ما استطاع هاي الله يعزك waxaan u maleynaynaa runtii barnaamijkeenu inaan saacadii rubigii aan ku jirnay ay noo dhiman tahay insha Allah 3 daqiiqo intaan hawada inta badan ku jirno 15 minutes aan nooga barta hadaan SWTV waxaan leenahay saacad ayaan bulshada Soomaaliyeed siinaa halka aan inta kale ka siino hadda inta kale aan ku qaadano falaqeynteena hallo salaamu calaykum magacaada halkaa joogto ورحمة عبد الله وحجوجا سويس رحمة هي برنامج ملصقة برنامج بريها نروح كام مقنع لكن عاو حوجا إنيربان مركز ما سوى عشي كان دعوة هي رحمة هي برنامج كده هروق المركز إن شاء الله عاو وحين وصل أنت أرتو عاو تعصيبا هالكانوا بتشيل يعني دريا ولا الله يقول مضيّد الصوماليات إلهي أنتي دمتي قبرك الله ونوره أنت دعوة عنا الله وبوقره آمين أنت كلا لما مركز تميدون لجوري ما يدي حمر ميدون لجوري ما حوالي بالنقطة بما وقته مركز ضد كان حمر دقن يجو ضد كان كلا ولا له ذو حقر حين يويق قانانه صح sidan ha isku dhaamaan oo iyagu naftooda ha ilaaliyaan oo iyagu dadkoogan leynaya ha soo qabtaan wad kale laba dawladda madaxda ku jirtay wada al-shabaabka ah wasiiradii baa dawlad goboleedkiiba ah madaxweynihii ku kasta ah marka waxaanay iyagu xas kala guraan oo ummadan dhanas ku beeraan leedahay dadkan masaakiinta kale laba dadkan madaxda dadkoodu ma joogaan halkan magaalada كينيا يجوغان يوروب يجوغان تركيا يجوغان لكن dadka dhimanaya waa shacabka صح shacabku iyagu dantooda ha gartaan kii askariya ilaahay ha ka cabsado dadkiisa walaalihi ha ilaaliyo ka ilmihiisu ku jira al-shabaabku ku jira ha soo sheego oo ilaahay ha ka cabsado maxay heeday lacagta dhiibaya ilaahay ka cabsado ka wax soo sheegaya la sheegi tikana laba shirkada telefoonada wadamadan aynu joogno telefoonka wax kantaroola shirkada telefoonka maxaa nin loogu dhiibaya maxay dawladdu waxa ku milaadahay bile lambarka nin baa iskale mise dawladda Soomaaliyeed baa iskale marka waa inay qayb controlka ku laata dawladdu ama la socodka shirkada qadaaqeedu waa inay controlaha way qofun iska imika hadan qof iska caayo qof iska waco dawladda hal la jooga way ogaanaysaa aniga telefoonkayga inaan aniga ahay qof use garaysa bravo sax waa laakiin takala labaad baabuuradani maxaa loogu sameyn laayay lambar targo yani tirkob dadka laftooda ma aqoonsi lahayn dadka shacabka taysaro qof walba taysaro Soomaaliya taysaro jirtay aan ma soo gaari laakiin taysaro jirtay waxaasoo dhan nin dad dawladnimada wax ka yaqaan ayaa fahamkeeda iskale waxaan u maleynayaa taas habacsaantaas waa wax jira dawladii hore dhan intaba dhanba way soo jireen laakiin dawladda ma moodaa aan kugu celiyay sahro ma moodaa raxma indheela raxma allah ma moodaa inaan dad aan dawladnimo u bislayn ama aan aqoon ba intaba soo heegsi waa la shaqaysanaya dadka waxa yimid NGO shaqo xasan wuxuu yimid inuu lacagaysto bas wax kale uma iman dadkana quraan dhimatay waxba ugama duwana quraan dhimatay محمود هذا أم سنتاي برنامج كنا كسر عاوك سوق وين أبا هذا أم السلام عليكم أحمد والعلاد بكو سلامية الله يعزله ما شاء الله هل كسر عاو برنامج كنا كسوق وين أنا كقال لي موضوع إنه شركة هرمود وأنا عاو إد وين أدوش كسرني تاسو عن لنا هرمود أدي عندنا كلو فيرنا هو شركة تاكليسة دتك الصوماليات وحبدون قبضتي شركة أكتيفة شقة وناسن شقة يقانا شقة أدو وناسن إسقارسين عصرية أو أفريقيا أنت ذيك الكور رئيسة إسلام مركز سنة runtii xaqiiqdana ay tahay oo indhaha aan laga qarsan karin heerka adeegeedu uu yahay adeeg hufan tayasara leh internet xawaare leh wanaagsan leh iyo telefoon maarta adeeg wanaagsan qiimo macquula intaba isku leh intaas wax been kama sheegtaa oo xaqiiqda ah waxay inta badan kaalmaysaa dadka dhibaataysan ee abaaraha iyo dadka lixaad kala iyo waxbarashada qaybo badan bay ka qaataa laakiin dhankaas waa dhanka positive dhanka negative-kana waxaan ogsoonahay in argagixisadu soo marto dhuunta ay soo marto ama ay adeegsaan ama awoodda adeegsaan ay tahay shabaab waxaan ogsoonahay inay tahay dhuunta keliya ee ay shabaabku qarxida ka geystaan ay tahay qalabka teleefanada ay adeegsaan waxaan ogsoonahay inay logistikada ama qalabka ay haystaan laftoodu
lagu tuumi karo ama ay qayb inay ka yihiin laga yaabo inay shabaab qalabkoodu uu qayb ka yahay intaba waxaan arkaynaa in adeega shabaab ama xoogga keliya ee shabaab cugsan yahay ay tahay ama halka uu ku tirsan yahay ay tahay shirkadda hormuud keliya mooyaane shirkadda hormuud shirkadaha xawlaadda ayagana raaci iyo taleefanada kale ee taleefanada kale oo ayagana sidoo kale laftoodu shirkadaha kale taleefanada leh intuba waxay qayb ka yihiin baabaa iyo burburinta iyo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ku dhaca dhanna waxay ka yihiin inay kaabayaal bulshada kaaba dhan ay ka yihiin laakiinse dhibaatada iyo kaabista waxaa nooga xanuun badan xanuunka nagana gaaray ee nooga xanuun badan waxaa kaloo hadda aan dowladda halkan uga faa'iidaysanayna aan leenahay xukuumad waxaan leenahay weliba hay'adaha amniga booliiska gaar ahaan haddiiba awooddaas leedan sii waa maba leediin fadlan la xisaabtama shirkadaha isgaarsiinta waana halka keliya ama hubka keliya ee bulshada lagu garaaco lagu dilo lagu dhibaateeyo dhaqaalaha lagu arushto ganacsada waa taleefanka fadlan hawada ka saar ugu yaraan xarumaha ay ka shabaabku ay haystaan xarumahaas ay haystaan ama halka ay ka taliyaan hawada laga saaro shakhsiyaadka simkaarada ama taleefanada aan la aqoon unknownka dadka aan la aqoon fadlan hawada laga saaro oo registration dadka Soomaaliyeed loo sameeyo isla markaasna taleefanka dacwo ama la adeegsado la arkana bulshada waxaa laga rabaa inay markaas soo wargeliyaan yiraahdo taleefankan shabaab ay iga soo wacay lambarkaasna sidaas hawada looga saaro shirkaduna waxaan leenahay marka waa inay dadku dowladdu laftooda hay'adda sirdoonka qaranku waa inay lug ay ku lahaataa habshaqada ama howlgalka sida shakhsiyaadka adeeg ka qaybgala barnaamijka uu soo jeeday oo ahaa qaybta security waa inay qayb ku lahaadaan waana Axmed idaacadaas markaasna halkan nagala socotaan waa SWTV Soomaali Wadan TV waxaan kugu bishaareynaa ama aan idinku wargelinaynaa haddii aad hayso ra'yi talo tusaale aad leedahay dalka ay dadkaada wax ugu qabo ama fikir wax dhisaya ama dood aad leedahay bulshada Soomaaliyeed in lagala hadlo ama laga wacyigeliyo ama laga falanqoodo oo la falanqeeyo ama la ifiyo oo u baahan tahay fadlan nagala soo xiriir SWTV Soomaali Wadan TV oo nagala soo xiriir karto WhatsApp-ka adoo fariinta qoraal cod inta nagu soo duubay haddii aad doonayso barnaamij aad leedahay wax in laga qabto ama cod in la maqlo aad u baahan tahay la leeyahay waxa u baahan in laga hadlo mawduucaas bulshada Soomaaliyeed loo ifiyo waad nala soo xiriir kartaa waad nala qaybsan kartaa warbaahinteenu ma aha warbaahin cid gaara ku tixasan laakiin waxaan ka hadalnaa dalka iyo horumarkiisa iyo ummadeena iyo dalkeena si wax loo qabo lahaa ummadeena u gaaray horumar iyo barwaaqo nabadgelyadan qayb aan uga naqaleen fadlan haddii aad og tahay argagixisada halkay aad ka hayso xog wanaagsan fadlan cidda as leedahay la qaybso haba ahaatay doontay annaga aad nala soo xiriir karto si aan ula xiriirno dadka aan isleenahay waxbay ka qaban karaan waa anigoo ah Axmed idaacada nahaya habeen wanaagsan meel walba adduunka ka joogta waxaan dadkeena u rajaynaynaa iyo halgamiyaasha fronta ku jira guuleysta dalkeena nabad baa u rajaynaa waxaan kaloo rajaynayaa inay hormuud aysan ka jiri doonin hormuud waan maqli doon soo maleena hormuuday ciidanka howlgalka ku jiraahay qadka ka jar taasuna waa midda ugu muhiimsan fariinta ugu muhiimsan oo dureen fadlan waxaan kaloo fariinta labaad ugu dirnaa waxay tahay ganacsatada taleefanada laga waco fadlan hawada ka saara taasuna waxaan leenahay fadlan waxaan kaloo ugu dambeyn aan leeyahay meelaha ay ka taliyaan shabaab shaqooyinkaas albaabada u laaba ilaa waqtigu dalku ilaan xoreyn buu dalku jiraa haddii aad dalka inuu xoroobo oo dalka nabad aad ku shaqaysta aad jeceshahay waana Axmed idaacadadan dhahay habeenkeedu wanaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeenu nabada ummadan wax walba taariikhda ay inaan dalkeena